Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada gabdhayga qaaliga quruxda badan leh. Waa mar kale iyo muuqaal kale oo cusub. Maanta waxaan idiin wadaa muuqaal yar oo gaaban, aad iyo aad u faa'iido badan. Faa'iido fara badanna aad ka heli doonto. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka nala sheer garay doontaan. Asxaabtiina kalena aad la wadaagi doontaan. Waxaan idiin wadaa 3 shay ee bishimahaada aad iyo aad uga faa'iido badan. Waxtar badanna kuu leh haddii aad ka caawinayso bishimahaada inay mar walbaba ay qalalan yihiin, ay ku dildilaacsan yihiin, qolofna ay ku leeyihiin. Alaabtan waxay kaa caawinaysaa inay bishimahaada bishimo qurux badan, jileeca, softi ah, qaleyl aan lahayn, wax dildilaac iyo waxyaabahaas aan lahayn ay kaaga dhigto. Bishimahaada bishimo qurux badanna ay kaaga dhigto. Sidoo kale haddii aad tahay dadka mar walbaba faruuriyahooda ay qalalan yihiin, zaa'idkii u qalalan yihiin, aad iyo aad ay kuu caawinaysaa xilliyada dabaylaha, qaboobaha ay jiraan oo kale way ku caawinaysaa faruuriyahaada faruuriyo jilicsan, safti ah, qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. Waan aragnay markii faruuryaha ay ku dildilaacaan oo kale marka aad qosasho kale faruuryaha way ku dildilaacayaan, way ku xanuunsanayaan. Mararka qaar oo kale aad ayay ku xanuunayaan. Alaabtan waxay kaa caawinaysaa in ay bishimahaada bishimo isku eg oo qurux badan ay kaaga dhigto. Ugu horeyn waa kuwaana 3 shay ayaan idiin wadaa. Aad iyo aad ayayna u faa'iido badan yihiin. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. Waxaan idiin wadaa waa Vaseline Lebis waaye. Cocoa butter ayuu ka samaysan yahay. Waa dried lebis. Dadka ay bishimahooda qalalan yihiin ayaa loogu talagalay welibana zaa'idka qoloftaas iyo qaleelkaas iyo waxyaabahaas oo dhanna way kaa qaadaysaa. Bishimahaada bishimo safti ah oo qurux badan ayayna kaaga dhigaysaa. Waa kasaa ayada waxa waaye plain waaye, waa caddahay white waaye, yacni wax kale kuma jiro laakiin sidii cocoa butterka camal ayay u soo carcarfaysaa. Tan labaad waxa weeye waa aloe vera lebis ayadana waxay ka samaysan tahay dacar. Wax yar oo kalar yar oo basali oo meel dheer ayay leedahay. Waa qafiif basaligeeda xitaa zaa'id maahan. Laakiin dareedka ayay ka ilaalinaysaa bishimahaada bishimo qurux badan oo jilicsan ayay kaaga dhigaysaa oo safti ah aadna u qurux badan. Kalarkoodana way isku kaa ekaysiinaysaa bishimahaada. Kan saddexaad ee ugu faa'iidada badanna waa kana waa lebis maski waaye. Maskigan aad iyo aad ku caawinaya bishimahaada qurux ayuu kaaga dhigaya, qoloftu kaa qaadaya, wasaqdu kaa qaadaya, dildilaac iyo waxyaabaha kaa saaran oo dhan wuu kaa qaadaya. Bishimahaada bishimo qurux badan oo isku eg oo hal kalar ayuu kaaga dhigaya. Waa Korean lebis maski waaye original ah. Aad iyo aad uuna ku caawinaya. Waa kaas asiga kalar ahaantiisa. Wax yar ayuu kalar yar oo meel dheer ayuu leeyahay. Laakiin marka aad marsato lagama dareemayo kalarkan oo kalar oo yacni sida rooseetada aad marsatay oo kale ma kugu noqonayo. Laakiin aad iyo aad ayuu faa'iido kuugu leeyahay. Bishimahaada wuu ku qurxinayaa, wuxuu kaa qaadaya qoloftii dildilaaci waxyaabahaas oo dhan wuu kaa nadiifinayaa. Bishimo jilicsan qurux badan safti ah isku eg hal nuuc ah ayuu kaaga dhigayaa. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidaysato.